Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti habboon daawadayaashana qiimaha badan. Halkani waa channelkeena Hoggaan Media oo alaaba aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay dunida, dhacdooyinka iyo arrimaha diblomaasiyadda. Waa maalinimo Jimco ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 17 Abriil 2026. Qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya haddii Rabbi uu qadaro. Codayntii aqalka sanadka ee ku saabsanaa iibinta hubka ayaa muujiyay in taageeradii Mareykanka uu siin jiray Israa'iil ay ka dhex qaraxday khilaafyo waaweyn. Qodobkaas oo faahfaahsan isla markaana macluumaad dheeraad ah la socda ayaad ku daawan doontaan. Dhanka kale, Syria ayaa la wareegtay dhammaan saldhigyadii ay horay ugu sugnaayeen ciidamada Mareykanka. Iyo sidoo kale waxaad ku daawan doontaan Peshkan ayaa ku ammaanay doorka Pakistan ee lagu gaaray xabad joojinta, isagoo sidoo kale iftiimiyay dadaalada Iran ee ku wajahan nabad iyo xasilooni laga hirgeliyo gobolka. Qodobadaas iyo qodobadii kale ugu soo kordho ayaad ku daawan doontaan, balse inta aan u gudagelin marka hore muuqaalka haddii uu soo gaaro fadlan like noo saar. Haddii aadan ka mid ahayn bahdayada ee Hoggaan Media, fadlan nagu soo biir oo channelka subscribe noo dheh, gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga. Magacaygu waa Hashim Adam. waad ku mahadsantahay la socoshada iyo daawashada muuqaalkeena. Ku soo dhawaada mar kale iyo tabinteena. Hagaag, haddii aan ku horeyno qodobkeena koowaad oo ah codayntii sanadka ee ku saabsanaa iibinta hubka ayaa muujisay daldalacyo waaweyn oo ku soo baxay taageerada Mareykanka Israa'iil. Codayn toddobaadkan ka dhacday aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa lagu doonayay in lagu joojiyo dirista qalab militari oo laga iibinayo Israa'iil ayaa ugu dambeyn fashil ku soo dhamaaday. Si kastaba ha ahaatee, dadka u dooda xuquuqda aadanaha waxay natiijadaasi ku tilmaameen marin isbedel ah, kaas oo muujinaya baalyiri in carro iyo niyad-jab sii kordhaya ay ka jiraan siyaasadaha Israa'iil. Senatarada xisbiga dimuqraadiga ayaa si aad u badan u taageeray hindisaha Arbacadii, kaas oo ujeedadiisu ay ahayd in la joojiyo iibinta baldoosaro militari oo loo dirayo Israa'iil. Kaliya 7 sanad oo dimuqraadi ayaa ka baxay safkooda si ay uga biiraan aqlabiyadda jamhuuriga, taas oo ugu dambeyn ku riday hindisaha 40 cod oo ogol ah iyo 59 diidmo ah. Dhaqdhaqaaqayaashaas arrimaha xuquuqda ayaa tiradan ku tilmaamay horumar taariikhi ah. Hassan Al-Tayyib oo ah agaasimaha sharci dejinta ee siyaasadda bariga dhexe ee ururka nabadda u ololeeya ee France Committee on National Legislation ayaa sheegay in kastoo hindisuhu uusan meel marin, haddana codbixintu waxay si cad u muujisay in inta badan senatarada dimuqraadiga ay hadda ka soo horjeedaan gargaar aan shuruudo lahayn oo la siiyo Israa'iil, taa oo la jaanqaadaysa baalyiri aragtida ah inta badan shacabka Mareykanka. Wuxuu intaa ku daray, codayntani ma ahayn oo kaliya arrin ku saabsan iibinta hubka, balse waxay ahayd cod ka dhan ah sii hurinta xiisadaha oo ay ku jirto suurtagalnimada dagaal ballaaran oo lala galo Iran. Hindisahan waxaa soo bandhigay senatarka horusocodka ah ee Bernie Sanders xilli ay sii xoogaysanaysay carro ka dhalatay colaadda lala galay Iran, taas oo uu bilaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isaga oo si wada jir ah ula shaqeynayay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Iyadoo aan ogolaansho laga helin Kongareeska, qaar ka mid ah senatarada sida caadiga ah taageerada adag u muujiyay Israa'iil sida Adam Schiff, Cory Booker iyo Amy Klobuchar ayaa Arbacadii taageeray hindisahan. Israa'iil ayaa baldoosaro u adeegsanaysay burburinta magaalooyin iyo tuulooyin ka dhan ah ku yaala Lebanon iyo Gaza Strip, taas oo qayb ka ah olole ay dadka u dooda xuquuqda aadanaha ku tilmaameen mid u dhow barakicin qowmiyadeed. Taageerada Israa'iil oo sii yaraanaysa. Codayn kale oo isla Arbacadii dhacday 36 senatar dhammaantood dimuqraadiga ayaa sidoo kale taageeray hindise lagu doonayay in lagu joojiyo iibinta bambaanooyin culus oo miisaankoodu yahay 1,000 rodol oo u dhiganta 450 kg oo loo dirayo Israa'iil. Hindisyo la mid ah lagu doonayo in lagu joojiyo iibinta hubka Israa'iil ayaa helay 27 cod sanadkii hore iyo 18 cod oo sanadkii 2024. Taageerada hindisaha Arbacadii ee ka dhanka ah iibinta baldoosarada ayaa ka badan laba jibaar tiradii senatarada ka soo horjeeday dirista hubka sanadkii 2024.
Doodayaasha xuquuqda aadanaha waxay ku tilmaameen isbeddelkan siyaasadeed uu ka dhashay saameynta isbiirsatay ee dagaalka Israa'iil ee Gaza, burburinta ka socota koonfurta Lubnaan iyo dagaalkii hadda hakadka galay ee lala galay Iran. Senator Bernie Sanders ayaa sheegay isbeddelkaasi wuxuu ka turjumayaa halka ay maanta taagan yihiin shacabka Mareykanku. Wuxuu sidoo kale yiri shacabka Mareykanka, dimuqraadi, jamhuuri ama madax banaanba, waxay rabaan in canshuurtooda loogu hagaajiyo nolosha gudaha dalka ee aan lagu dilin haween iyo caruur oo aan waxba galabsan oo ku sugan bariga dhexe, isla markaana aan ciidamada Mareykanka lagu gelin khatar ka dhalata dagaalada ballaarinta ah ee Netanyahu. Sahan uu sameeyay Pew Research Central bishan ayaa muujiyay in 60% dadka waaweyn ee Mareykanku ay ku jiraan 80% dimuqraadiga ay aragti taban ka qabaan Israa'iil ayaa si gaar ah aan looga jecleen dhalinyarada iyadoo aan loo eegin xisbigooda. Sahanka Pew wuxuu muujiyay in 70% dadka ka yar 50 sano ay ku jiraan 57% jamhuuriga iyo 84% dimuqraadiga ay aragti taban ka qabaan Israa'iil. Si kastaba ha ahaatee, senatarada jamhuuriga ee sanadka, kuwaas oo marar dhif ah ka hor yimaada siyaasadda Donald Trump, ayaa si wadajir ah ugu soo horjeestay hindisayaasha Sanders. Dhinaca kale, Suuriya oo la wareegtay dhammaan saldhigyadii ay horay ugu howlgali jireen ciidamada Mareykanka. Dowladda Syria ayaa si buuxda ula wareegtay dhammaan goobihii militari ee ay horay ugu sugnaayeen ciidamada Mareykanka, taas oo soo gabagabeynaysa wareejin saldhigyo ah oo ay Dimashq sheegtay in ay ka dhalatay in dagaalyahanada ay hormuudka u ahaayeen Kurdiyiinta si rasmi ah ugu biireen qaab dhismeedka qaranka. Ku dhawaaqistan oo la shaaciyay Khamiistii ayaa timid kadib markii kolonyadii ugu dambeysay ee askarta Mareykanka iyo qalabkoodii militari ay ka baxeen saldhigga cirka ee Qasraaq Air Base oo ku yaala gobolka waqooyi ee bari. Tani waxay soo afjaraysaa joogitaan militari oo bilaabmay sanadkii 2014, markaas oo ciidamada Mareykanku ay galeen dagaal ka dhan ah ururka ISIL iyaga oo garab siinaya dagaalyahano Kurdiyiin ah oo markii dambe hoggaanka u qabtay ururkii loo yaqaanay Syria Democratic Forces. Madaxweynaha Suuriya Ahmed al-Sharaa ayaa Khamiistii magaalada Damascus ku qaabilay wada mas'uul ee ugu sareeya SDF, taliyaha militariga Masluum Cabdi iyo madaxa garabka siyaasadeed Ilham Ahmed. Kulankaas waxaa sidoo kale goobjoog ka ah wasiirka arrimaha dibadda Asad Xasan al-Shaybani iyo ergeyga madaxtooyada ee kormeerayaasha geedi socodka isku darka ciidamada. Wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbo-joogta ee Suuriya ayaa soo dhaweysay dhamaystirka wareejinta saldhigyadan, iyadoo sheegtay inay ka turjumayso dadaalka dowladda ee lagu mideynayo dalka oo dhan oo hal maamul oo dowladeed hoostaga, gaar ahaan dhulka xuduudaha iyo waqooyi bari dalka oo muddo dheer ka baxsanaa gacanta Dimashq. Ugu dambeyntiina, haddii aan eegno Bashkan oo ku amaanay doorka Pakistan ee xabad joojinta, kana hadlay dadaalada Iran ay nabadda iyo xasiloonida gobolka ku raadinayso. Madaxweynaha Iran Mas'uud Bashkan ayaa ku amaanay dowladda Pakistan doorkii ay ka qaadatay dhexdhexaadinta iyo hirgelinta xabad joojinta dagaalkii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Israa'iil ee ka dhanka ah Iran. Wuxuuna sheegay in Tehran ay doonayso nabad iyo xasilooni warta oo ka hana qaada gobolka, isla markaana ay ku raadinayso xuquuqda shacabka Iran iyadoo ku dhaqmaysa qaab dhismeedka sharciga caalamiga ah. Intii lagu guda jiray kulan oo Khamiistii ku qaabilay magaalada Tehran, taliyaha ciidamada Pakistan Azim Munir Bashkan ayaa ku bogaadiyay doorka wax ku oolka ah ee uu taliyuhu ka qaatay dadaalada dhexdhexaadinta. Sidoo kale wuxuu amaanay dadaalada ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif ee ku fududeeyay in la gaaro xabad joojinta. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu mahadceliyay sida wanaagsan ee Pakistan u martigelisay wafdiga Iran ee wadahadalada uu kula lahaa Mareykanka ee ka dhacay Islamabad. Madaxweynaha carabka ku adkeeyay mowqifka mabda'a Iran ka qabto dunida Islaamka ayaa sheegay in Iran ay dhammaan dalalka Islaamka u aragto walaalo, isla markaana aragtidaasi ay ku saleysan tahay dhaqankii iyo sunnadii Nabi Muhammad, nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ahaatee. Wuxuu intaasi ku daray in weeraradii dhawaan Iran ay ku beegsatay saldhigyada militariga ee Mareykanka ee gobolka ay ahaayeen kuwa difaac ku saleysan oo jawaab u ah duruufaha lagu qasbay. Bashkan wuxuu tilmaamay in
ilaha colaadaha iyo xasilooni darada badan ee ka jirta gobolka ay ka soo faracmeen shirqoolo uu wado maamulka Israa'iil si uu kala fogeeyo dalalka Islaamka wuxuuna adkeeyay in ummadda Islaamka ay ku midoobaan wadajir iyo iskaashi si ay uga hortagaan in Israa'iil ay dhulka Islaamka u adeegsato dano ka dhan ah muslimiinta laftood wuxuuna sidoo kale xusay in haddii dalalka Islaamka ay mideeyaan ay meesha ka bixi doonto suurtagalnimada in gobolka dagaal loo riixo isagoo ka hadlayay waxa uu ku tilmaamay gardarro sharci darro ah oo ay sameynayeen Mareykanka iyo maamulka Sahyuuniyadda ee Israa'iil ee ka dhanka ah Iiraan madaxweynuhu wuxuu su'aal ka keenay ogolaanshaha iyo sababta loo qaaday falalkaas kuwaas oo sababay sida uu sheegay geeridii hogaamiyihii Iiraan Cali Khamenei burburinta iskuulo iyo isbitaallo iyo dilka carruur iyo rayid aan waxba galabsanin haddii aad halkan nala soo gaartay waan kaaga mahadcelinaynaa la socoshada iyo daawashada muuqaalkeena haddii aad ka heshay fadlan muuqaalka like noo saar oo la wadaag asxaabtaada fikirkaagana qaybta hoose ee faallooyinka noogu reeb tan iyo inta aan tabinteena xigta ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaan Allah